بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا warka tabinta tooska ee Som TR TV oo idin kaga imaanay magaalada Ankara anigoo ah Fatma Tahir ee idin la socodsiinaya daawadayaal sanadka cusub ee 2021 wuxuu ku bilowday dhacdooyin kala duwan oo saameyn ku leh adduunka qodobada aad ku daawan doontaa warkana waxa qayb ka ah madaxweyne Trump oo laga xiray Facebook, Instagram iyo Twitter aqalka sanadka dalka Mareykanka oo dad careysan qabsadeen golaha wasiirada Soomaaliya oo soo celiyay safiiro cusub gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta si rasmi ah xarigooga jaray dhismaha Bullaacada Muqdisho dowladda Turkiga oo baaq u dirtay dalka Mareykanka heshiiska dowladaha Khaliijka dowladda Turkiga oo dayax gacmeed hawada sare u dirtay dowladda Pakistan oo soo bandhigtay gantaal cusub wararkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay madaxweyne Trump oo laga xiray Facebook, Instagram iyo Twitter mulkiilaha Facebook Mark Zuckerberg ayaa sheegay in Trump laga xiray isticmaalka Facebook iyo Instagram taasoo ah tilaabo ku cusub madaxda caalamka arintan oo keentay in madaxweyne Trump uu la xiriiri waayo taageerihiisa aqalka sanadka Mareykanka oo dad careysan qabsadeen dad careysan oo taageersan madaxweyne Trump ayaa xoog ku galay aqalka sanadka ee Mareykanka arinta ayaa keentay falcelin weyn oo dalka Mareykanka gudihiisa ah gaar ahaan madaxweynayaashii hore qaarkoodna waxay ku tilmaameen falkaasi inqilaab fashilmay golaha wasiirada Soomaaliya oo soo celiyay safiiro cusub golaha wasiirada federaalka Soomaaliya oo diiday safiiro cusub oo ay magacawday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya sidoo kale goluhu waxay ansixiyeen hindisa sharciyeedka xajka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta si rasmi ah xarig jar u sameeyay dhismaha Bullaacado gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta si rasmi ah xarigooga jaray dhismaha Bullaacado casri ah oo uu maamulka gobolka Banaadir ka hirgeliyay inta isku xirta isgoyska kilometer 4 ilaa dekada Dryport qalalan ee magaalada Muqdisho dowladda Turkiga oo u dirtay baaq dalka Mareykanka dowladda Turkiga oo ugu baaqday Mareykanka inay dejiyaan xaaladda lana xakameeyo isku dhacyada waxayna u soo jeedisay madaxda dalkan in la xalliyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan heshiiska dowladaha Khaliijka ayaa ka heshiiyay dagaalkii u dhaxeeyay iyagoo heshiiskooda kadib ku dhawaaqay in dhammaan ganacsigooda isku furmi doono dowladda Turkiga oo dayax gacmeed hawada sare u dirtay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaciyay in dalkiisu uu hawada sare u diray dayax gacmeedkiisa cusub ee loo yaqaano Turksat 5A subaxnimada Jimcaha maanta dowladda Pakistan oo soo bandhigtay gantaal cusub Pakistan ayaa soo bandhigtay gantaal cusub oo ay gudaha dalkeeda ku farsamaysay gantaalkan cusub ee Fatih 1 wuxuu awood u siiyay ciidamada Pakistan inay si sugan ugu liishaamaan bartilmaameedyo qoto dheer oo ku yaala dhulka cadowga waa hagaag daawadayaal guud ahaanba wararka tabinta tooska ee telefishinka Som TR TV oo idin kaga imaanay Ankara xilligan waa inaga inta anigoo ah Fatma Tahir ayaa halkan idin kala socodsiinayay tan iyo kulanti dambe